السلام عليكم. ما حد كتقانا دربي وين إيشينها دربيga weyn ee Shiinaha waa mid ka mid ah guulaha injineernimo ee ugu la yaabka badan adduunkan maadaama derbiga lagu dhisay iyadoo la adeegsanayo kaliya dadaal bini'aadanimo. Dhererka derbiga Shiinaha waa 13,170 mayl, dhererkiisuna wuxuu u dhaxeeyaa 5 ilaa 8 mitir iyo weliba ballaciisa oo lagu qiyaaso 5 ilaa 6 mitir. Waxaa dhisay hogaamiyaashii Shiinaha ee qadiimiga ahaa si ay u ilaashadaan khatarta shisheeye iyo in ay siiyaan ilaalinta ku saabsan dhulka Shiinaha. Derbiga weyn ee Shiinaha wuxuu xiriir lahaa khuraafaadkii Shiinaha, sheekooyinkii astaamaha dadka, waxayna astaan qaran u noqotay qarnigii 20aad. inkastoo ay muhiimad dhaqan u leeyihiin qaybo badan oo ka mid ah derbiga weyn ee Shiinaha wuxuu awood u siinayaa in uu arko qaar badan oo ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee Shiinaha maadaama ay aad u dheer tahay, masaafooyin dhaadheerna ay tahay. waxay 50 kiiloomitir u jirtaa magaalada Beijing waxayna ku taallaa dooxada Guangga, waxaana dhisay Ingiriiskii Ming, waxayna ahayd magaalo military leh deganaansho rasmi ahna ah munaarado waaweyn oo fara badanna ku taal oo ay ilaaliyaan macbudyo iyo weliba khuraafaad ay caabudaan. Simatian waa qayb ka mid ah derbiga oo qiyaastii 140 kiiloomitir u jirta magaalada Beijing, waxayna ku taallaa gobolka Miyan. qaybtani waxay ka kooban tahay 17 munaaradood, waadna ku dul socon kartaa, waxaadna arki kartaa jihooyinka dalxiiska ee kala duwan. UNESCO waxay ku xustay inay tahay xarun dhaxalgal ah dhaqanka adduunka. qaybtani derbiga waxay masaafo dhan 140 kiiloomitir u jirtaa magaalada Beijing, dhererkeeduna waa 20 kiiloomitir, waxayna ka kooban tahay 12 munaaradood. derbiga weyn ee Washion iyo derbiga weyn ee Balangongshan waxay ka kooban yihiin 143 munaaradood.